يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada horumari madbaqaaga janal. Waan idin salaamayaa ummadda Soomaaliyeed, asxaabta janalka ku xiran aad iyo aad baan idin salaamaya meel kastoo aad kala joogtaan iyo xilli kastoo ay idin tahay. Maanta waxaan isla eegaynaa oo aan isla karinaynaa shaciiriya. Shaciiriya waa diish macaana, maasha Allah, saas ayuu u egyahay. Dhisaynkaas ayaan usoo sameeyey. Dee siyaabo badan baa shaciiriyada loo sameeyaa kala duwan. Hadda maanta kanaynu inagu isticmaalaynaa ama aynu samaysanaynaa insha Allah biidmillaahi kariim. Aad iyo aad bay u fududahay. Waxaan rajeynayaa insha Allah inaynu ka wada faa'iideysan doono. Saas ayay quruxdeeda iyo qawaamkeeduba yahay maasha Allah. Dhadhankeeda iyo urteedana anaa idinka markhaatiya. Markaad samaysaana idinka ayaa soo arki doona haddii Ilaahay ka dhigo. Bal ugu horreynba asxaabey, maqliga aan dabka saarno. Dabkuu shidan yahay, in yaroo saliida ayaan kusoo daray, waananu bedelan karnaa saliida. Halkan waxaan ku jiraa laba koob iyo badh baan shaciiriyada. Koobka iyo badhka shaciiriyada ah, shaciiriyada noocan isticmaalay kan weeyaan. Biimka ayaan kasoo iibiyey, birsi firbirkana wuu yaalaa. Meelaha baastadu taalo ayay yaalaan, ciddii indaydayeysa ama isla talow shaciiriyada xaggii ka taalaan Turkiga. Ciddii garanaysana alxamdulillah way garanaysaa. Asxaabay bunni ayay ii soo noqonaysaa, waa tan bunni ayay ii noqotay maasha Allah tabaaraka raxmaan. Waa saliidii iyadii isku soo shaaxidiyey, bunniga noocaas ayay ii noqotay. Intaa qofkii rabaa wuu kasii madoobaysan karaa, laakiin anigaas intana ila qurux badan oo aan had iyo jeer ku daaya. Asxaabay waxaan ku daray in yaroo sonkora 3 mulqaacadood. Qofkii doonaya wuu ka kordhisan karaa, waa calaa xasbi dalab. Intaa uu qofku u baahan yahay ayuu ku darsan karaa. Aniga laakiin waan ka yareysanay u muuqato. Waxaan ku daray biyo. Biyaha waa intii ay igu bislaato, waan soo kormarinayaa. Biyaha iyagoo kulul baa ku shuban kartaa, iyagoo caadi ah oo aan kululayn waad ku shuban kartaa. Hadda now imika biyahan aanu ma soo kululeynin, qasabadaan kasoo shubay. Asxaabay intaa yarna aan ku darayana waa in caadi ah, shaciirada caadi ah oo aan dubnayn ama aan saloolnayn. Waxaan doonayaa inay tixtix yar oo cadcadaana ii yeesho, yacni waxaan uga jeedaa inay ii qurxiso. Asxaabay waxaan ku darayaa daraf ama mulqaacad yar oo vanilya ah. Vanilyada waxaan ku bedelaynaa hayl. Haylka aad iyo aad iyo aad ugaga udgoon, haylka shiidan amba aad tuntay ama ridiqday kolba sidii aad kuu suurta gasha. Laakiin waanan hayn anigu imika. Waxaan ku daray hadda qabso yar oo milixa ama wax yar oo far iyo suula oo milixa. Milixda maadaama uu diishku macaan yahay, waa far iyo suul lagu badin maayo. Haddii macaankii iska kaa dhex galaan dhanaanku, cuntadaas waa ka kacanba macaankayaasu maxayde waa kaa qariban yahay. Asxaabi saas ayaan maxayheeday insha Allah aan ku dabooli doonaa ilaa inta inoo soo bislaanayso. Asxaabay waatanaa way inoo soo bislaatay maasha Allah tabaaraka raxmaan. Saas ayay inoogu bisishahay. Waa idinkaa arkaya quruxdeeda. Intii aanan salooline cadaydna waa taas ka yar dhex muuqata, cadcadaan yar bay leedahay saad arkaysaanba. Waad arkaysaan indhihiina waad ku aragtaanba. Halkaa markay noo marayso waxaan soo qaadanaynaa asxaabay bileerkii taqdiimka. Waxaan anigu dul saaray hadda qadaacada yar, waa tashkiil inaad tashkiiliyaan rabaa. Sida aad doontaad u tashkiilin kartaa. Waxaad kusoo ridan kartaa boolka labaniyada intaad ku kabisto ayaad dabeetana kusoo fururin kartaa. Haddaad hayso wax yar oo kale oo ama xidig ama wax noocaasa ama waa sida wardada u samaysan, waa sidan qadaacada yarba ugu kabsiinayaad ugu kabsiin kartaa. Waa taas. Intaas waan ka dheerayn karaa. Laakiin waa inta ugu gaaban dee markaas saas laba ayaan doonayaa inay ahaato. Waxaan ku qurxin karnaa wax alla wixii aynu haysano. Haddii mukasaraad tahay, haddii sabiib tahay, haddii jooselindi tahay, haddii fruit yar oo la jarjaray tahay. Wax alla wixii aynu haysano oo aynu tisiin uga dhigan karno ayaynu ku samaysanaynaa. Anu maanta waxaan hayaa joosel hindi iyo sabiib ayaan ku qurxinayaa ama aan dusha kaga yarsan sameynayaa si ay iigu qurxiso. Marka waxaan sameynayaa markaan joosel hindiga saa ugu shushubo
waxaan soo qaadayaa haddana saliidtii oo aan haddii la yiraahdo aan ku aan dusha kaga shubayaa saliidta iyo joosil hindiga. Markaan labadaas ku qurxiyo oo aan ku shushubo oon ku dhammaystiro haddii la yiraahdo dishashkan oo kale dee ani imika qada weyn oo taho qadan imika raacinayaa macaankan. Saliidtiina waa maydhay asxaabi saliidta ha la iska maydho caruurta marka la siinayo saliidta ha la iska maydho cuntada marka lagu soo dul sharaxanayo saliidta ha la iska maydho marka la cunayo caadi dadka waaweyn cunaya saliidta ha la maydho waayo saliidta waxa uskag badan baa ka baxa. Waxaad arkaysaa dadkeenu intay iska iibsadaan aayar iska qarqariiranaya maxay ahayd waxaan saliidta waa wax la qalajiyay dhas badan iyo cabayn badan iyo wax badan soo martay saliidta aad iyo aad ha la isaga maydho. Asxaabey markaan soo dhameeyo waa kan maasha Allah sidaas ayay ku soo baxday quruxdaas weeyaan dhadhankeedana lagama sheekeeyaan. Waxaan rajeynayaa inaynu ka wada faa'iidaysanay dhisayno kalena waad u samayn kartaa oo saalkan oo kale koobkan oo kale aad arkaysaan ayu weel aad haysato ayaad ku dhisayn garayn kartaa boolashii labneeda sidoo kale waad ku samayn kartaa koobabkan oo kale qofka dee haystana maasha Allah waa qurux oo aad bay ugu qurux badan yihiin waxyaaba macmacaanka iyo iskriinada iyo waxaasoo kale waa kaas aad arkaysaan maasha Allah quruxdiisa iyo qawaamkiisaba waad aragtaan. Asxaabey waxaan ku dhaafayaa sidaa iyo amaano Allah iyo casharo dambe oo xiiso leh. Wassalaamu calaykum.